أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا توافق التراب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومركلة يا برنامج كيني أينو مقع درني حق دور ونقنصا ترأهان حلقة دي شناد وحاينو كغور رمي دونا حلقة تنأه دي الله سبحانه وتعالى إنو أقلاده حق أبدك يكوليهين والدكود. حق الأولاد على الوالدين أو على الوالدين، حق يكوليهين أبدكو أما عرورته والدكود. وحي الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وكغور رمي إن إلهي أدى دارمي إنسانكي إنه إلاليه أو دوره والد كيسه. مركلة إلهي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وحاو كغور رمي إن dadka mu'miniinta ah ama ahlul iimaanka ay naftooda iyo ehelkooda ay ka badbaadiyaan naar. Cid naar laga badbaadiyo marka nafta laga yimaadana waxa ugu qiimo badan ubadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka yeelay gacmaheenii qaar ku jira oo mas'uuliyadoodii ay nasaaran tahay. Idan haddaba waxaan isweydiinanaa xaqa ubadku ay leeyihiin muxuu yahay. Inta aynaan gelin xaqa ubadku ay leeyihiin waxa laga maarmaan ah dhowr qodob in aynu ogaano. qodobka koobaad, ubadku waa ammaano Ilaahay subhanahu wa ta'ala labada waalid uu weydiinayo maalinka qiyaamaha. xadiidka saxiixa ah ama Bukhari iyo Muslim ay soo wariyeen waa ka xabiibkeena Muhammad alayhi salatu wasalaam ku tilmaamaya ee leh warrajulu raa'in ala ahli bayti wa huwa mas'uulun anhum. qofka waal aabaha ama ninkaahi waa qof raaciya oo loo diray ama la raaciyay beydkiisa ama gurigiisa dadka ku nool ama ehelka u ah oo ubadkii dabcan ay kamid yihiin. waana la weydiinayaa mas'uuliyadaas iyo dadka loo diray mas'uuliyadooda sidoo uga soo baxay. qodobka labaad, mas'uuliyatu tarbiyatu al-abnaa wa ri'ayatihim taqa'u 'ala al-walidiin. in ubadka la barbaariyo oo la toosiyo la tilmaamo laga dhigana qaar barbaarintooda ay fiican tahay waxay dushooda saaran tahay ama ay mas'uuliyadooda tahay labada waalid oo marka ugu horeysaba mas'uuliyadaasi qaaday. qodobka saddexaad, labada waalid waa dadka ugu ta'siirka badan ama ugu raadaynta badan ee ilmaha mustaqbalkiisa saameynta ku yeesha. waa ka xadiidkii saxiixa ah rasuulku ku tilmaamay alayhi salatu wasalaam ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه أو يمجسانه. mid kasta oo la dhalo ama dhasho waxa lagu dhalaa fitrada iyo tawxiidka islaamnimada, laakiin waxa karkaarka weydaariya oo fitradaasi ka leexiya oo ka dhigay yahuudi ama nasraani ama mushrik ama majuusi ama shaydaan caabud. cid leexsan waxa ka dhigta oo leexisa waa labada waalid, labadiisa waalid. idan marka waxaan ogaananaa qiimaha ay leeyihiin labada waalid. dhowrka qodob ee hordhac u ah xuquuqda ay leeyihiin ubadku ay ku leeyihiin waalidkood waxa laga maarmaan ah inaynu fahno oo aynu hadda guda galanaa xuquuqda ay leeyihiin. xuquuqda marka laba aynu u qaybinanaa. xuquuq ay ubadku leeyihiin inta aanay dhalan ka hor oo laga rabo aabaha iyo hooyaduba inay ka soo baxaan ama ay la yimaadaan, iyo xuquuq marka ay dhashaan kadib laga rabo inay la yimaadaan oo ubadku ay ka helaan waalidkood. الحقوق قبل وجود الولد أما قبل المولود inta aanay dhalan ka hor ama aanu inaku ama ilmuhu aanu iman ka hor xuquuqda laga rabo waxa kamid ah kow, in aabuhu uu u dooro ilmihiisa hooyo wanaagsan, sidoo kale hooyaduna ay u doorto aabo wanaagsan. labaduba waa mas'uuliyad saaran, aabahana saaran, hooyadana saaran. sababta waxaynu soo ogaanay mas'uuliyadu intay leegtahay iyo ta'siirka iyo raadka ay ku leeyihiin labada waalid ubadka. haddii marka hooyadii wanaagsanaato aabihii qalloocdo
saameyn xun buu ku yeelanayaa ilmihii haddii aabihii wanaagsanaado hooyadii qaloocsanaatana waxay ku yeelanaysaa saameyn aad iyo aad u xun idan xadiidkii saxiixa ahaa waa kii rasuulku ku tilmaamayay tunkaxu lmar'atu liarbac waxaa loo guursadaa ama haweeneyda loo guursadaa 4 marka gabadhina xaq u leedahay inay ninkeyga intaa ku guursato ama ay ku hesho waxaa ka mid ahaa limaaliha walixasabiha walijamaaliha walidiiniha waxaa ka mid ah maalkeeda nasabkeeda quruxdeeda iyo diinteeda wakii markuu diinta ka warramay rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam fadfur bidaati diin tarabat yadaak markuu guulayso gacmaagu haba boodhoobaane gabadha diinta u saaxiibka ama diinta iskale idan markaa xaqa uu ubadku ama ilmuhu ku leeyahay waalidka waxaa ka mid ah in uu intaanu dhalan ka horba aabuun hooyo wanaagsan u dooro hooyaduna aabo wanaagsan u doorto 2 adducaa'u bidurriyati saalixa in uu qofku ku ducaysto in ilaahay subxaanahu wa tacaala ubad wanaagsan uu siiyo nabiyullaahi zakariya calayhi salaam markii uu arkay maryama binti cimraan oo meeshii mixraabka ahayd fadhida oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u arsaaqayo ayaa uu la yaabay markaasuu ku yidhi qaala annaa laki haada maryamay cuntadanii waxaad cunaysaa halkay kaaga timid qaalat hiya min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab markaa u tilmaamtay ku tiri ilaah baa subxaanahu wa tacaala i siiyey ayaa halkaa waxa uu bilaabay in ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisto in ilaahay subxaanahu wa tacaala ubad u siiyo fii suurati aali cimraan aayadda 38 waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warramaya leh hunaalika dacaa zakariya rabbah qaala rabbi hab lii min ladunka duriyatan dayibatan inaka samiicu ducaa halkaasaa markaa nabiyullaahi zakariya calayhi salaam rabbigii uu baryey markaasaa waxa weydiisto uu yidhi yaa rabbi rabbigayow hab lii min ladunka duriya waxaad agtaada iga siisaa adiga ilan deeqdii ubadkii adduunkii wax walba agtaada yihiin allahay waxaad i siisaa ubad wanaagsan inaka samiicu ducaa marka ubad keliya ilaahay subxaanahu wa tacaala in la weydiisto waxaa ka fiican oo ka quman ubad wanaagsan ubadku waa imtixaan sida aynu sheegi doono qodobka 3 in waalidku marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhexdooda ubad ka beerayo waxaa timaada baahi jinsiya marka jimaaca iyo galmada ay samaynayaan waxa laga maarmaana inay bisinka qabsadaan waxaa ka sugnaatay xadiis saxiix ah oo muttafaq calayha in rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam low anna axadakum idaa ataa ahlahu qaal bismi illaah allahuma jannibni ashayطaana wajannib ashayطaana maa razaqtanii fain kaana baynahumaa waladun lam yaduruhu shayطaan walam yusallit calayh waxau rasuulku leeyahy sala allahu calayh wasalam midkii markuu xaaskiisa u tagayo haddii uu akhriyo ducadaasi oo uu dhahdo bismi illaah magaca ilaahay baan ku bilaabaya ee allahyo shaydaanka iga foge waxaad igu arsaaqdana shaydaanka ka fogeeye ka dheeree haddii maalintaas ama habeenka ama wakhtiga ayada ah ilaahay subxaanahu wa tacaala dhexdooda ka qoro in uu ubad ka dhasho wuxuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayh wasalam wax shaydaanima dhibayo lagumana sallidayo allahu akbar waa mas-uuliyadaha ama xuquuqda uu nagu leeyahay ama ay nagu leeyihiin ubadku inta aanay dhalan ka hor ee laga rabo inay la yimaadaan waalidiintu xuquuqda markay ubadka dhashaan maxaa ay nagu leeyihiin ama ay mudan tahay inay naga helaan haddii aynu nahay waalidkii kow waxaa ka mid ah inaynugu ducayno in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wanaajiyo wakiila fii suurati axqaaf ilaah waa kaga warramaya waaslix lii fii duriyatii inii tubtu ilayka wa inii min almuslimiin marka waa inaynu u ducayno ubadkii 2 tasmiyatu lwalad bismin xasan inaynu u bixinno magac wanaagsan marka ubadka ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu arsaaqo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaasuu ahaa saxaabadiisiina sidaasuu amray ama uu sheegay qaar magacaan aan munaasab ahayn ama xun lahaana waa ka bedelo magac wanaagsan buu ugu bedel 3 raxmatuhu warifqu bihi fi tacaamul in waalidku uu kula dhaqmo naxariis iyo dabacsanaan markuu ilmihiisa la dhaqmayo anas bin maalik radiallahu canhu waxa uu leeyahay maan arag cid uga naxariis badan nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ciyaalka imaam muslim baa soo saaray bal nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ah khayru khalqillaah ayaa anas bin maalik oo 8 sannadood in ka badan rasuulka ag taagnaa ayaa waxa uu leeyahay maan arag cid uga naxariis badan ciyaalka nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuu la ciyaari jiray wuu la kaftami jiray wuu la qosli jiray caaisha radiallahu canha iyadna waxay leedahay oo ay tilmaamaysaa sida xadiidka imaam muslim soo saarayo
waxa leeyahay dad reer baadiya ayaa u yimid nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaasay su'aal weydiinay ku yiraahdeen atuqabbiluuna sibyaanakum wa miyaad dhunkantaan ubadkiina markaasaa lagu yiri nacam haa markaasaa waxay yiraahdeen iyagu wallaahi ma nuqabbil anagu ma dhunkano markaasaa rasuulullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay wa amliku in kaana allahu nazaca minkum arrahma oo miyaan awooda haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbiyadiina uu ka saaray naxariis inaan anigu idiin soo geliyo dhunkashada ubadka la dhunkanayo ee loo muujinay naxariista iyo dabacsanaantu waa shay qaaliya wa xabiibkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam nagu barbaariyay ubadka inaynu dhunkano la qosolno u tilmaano wanaaga وجه فرفرنان وحق نقوليه قضب كافرات الحفاظ على كرامته وتجنب سبه وتعنيفه وضربه إن لقد يرادو إن كرامة علمه ليه هاي ميل لقد لعايو لحمايو لبلوكيستو كرامة علمها لا يلاري وحقه نقوليه هاي علمه والد بدنو حفظة سدان علمها وعيان ويفلقاديان waxa laga yaabaa dhaawac weyn inuu qalbigiisa ama qalbiga ilmaha ay ku reebto hadallo aan waalidka agtiisa ku cuslayn oo ama cay ah ama sifo aanu ku sifaysnayn ama tilmaan aanu ku tilmaanayn oo qalad ah in lagu tilmaamo sida nacas bedow saaqid wax mataransade iyo boqolaal hadal oo aad moodo in ka bulsho ahaan dhexdeena uu caadi ka yahay waa arrimaha la in laga doonayo ama xuquuqda ay nagu leeyihiin ubadku inaynu ka dheeraano hadallada cunfiga ah iyo fogaanshaha leh inaynu ka ilaalino 5 muraacaatu xaqihi fi al-la'b wal-la'ib ma'ahu bima yufiiduhu wa la yu'dhihi inaynu ubadkii la ciyaarno u ilaalina xaqa ay leeyihiin inay ubadkii ciyaaraan oo aynaan u arkin inay u noolaadaan sida aynu u noolnahay ubadku waxay soo marayaan marxalad aynu inaguba soo marnay oo ah enerjiga iyo tamarta ku kaydsan inay bixiyaan marka waalidka waxa laga doonayaa oo ilmuhu xaq ugu leeyahay in uu u ogolaado una ilaaliyo xaq uu leeyahay ilmuhu inuu ciyaaro sidoo kale in waalidku ubadkiisa la ciyaaro oo aabihi markuu guriga soo galo aan laga baxsan laakiin ugu soo ordo la jeclaysto la ciyaaro bal u fiirsa xabiibkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam abi hurayra sidoo soo warinay imaam ahmed iyo qeyrkiina ay soo wariyeen imaam albani oo tahsiininayo xasanka ku tilmaamayo waxa uu leeyahay kunna nusalli ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waxaanu ahayn qaar la tukada rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam marka rasuulku uu sujuudo salaada aan tukanano waxa dhabarka ka fuuli jiray xasan iyo xuseen oo ah labadii ilmood ama ubad ahaa ee inatiisa faatima ay dhashay awgan uu ah marka uu rasuulku soo kaco ee uu sujuudo ka soo kaco intuu soo qabto ayuu dhulka dhigi jiray markasta oo ku noqdo sujuudana way ku noqon jireen ilaa salaada rasuulku sallallahu alayhi wasallam sida ku dhameeyo deeta marka damaan ay dhabtiisa ku fariistaan bal suurayso waa salaad aad tukanayso in ilmaha ay kugu ciyaaro inagu maxaynu sameeynaa masaajidka maxaynu ka yeelnaa marka ilmuhu ku ciyaaro gurigeena bal ka war fadhiga hadduu ku ciyaaro ka war hadduu adiga kugu ciyaaro ka war allahu akbar waxa ku dayashay noogu sugan tahay xabiibkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam waalidka mas'uuliyadda saaran bay ka mid tahay in markay goobaha ciyaaraha geeyaan meelaha aan munaasabka ku ahayn ama jirkooda iyo maskaxdooda damage ama dhaawac gaarsiinaya inay ka ilaaliyaan qodobka 6 inay kula dadaalaan in ubadka wax la baro oo tacliimta iyo waxbarista loo ilaaliyo looguna dadaalo waxa soo hoos galay qodobkaasi in lagula dadaalo al-aqeedatu saliima in aqeedada iyo aaminaadda toosan ilmaha lagu barbaariyo u fiirso luqmaan al-hakim inkiisa muxuu ku lahaa wa id qala luqmaan libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim ya hadithki ibn abbas rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo rasuulku ku tilmaamay talooyinka faraha badan loo siinay laba inaynu ilmihii kula dadaalno inaynu quraanka barno waliba khaasatan ubadku inta yariirihiin in ugu dadaalo in la xifdisiyo sababtoo noloshiisa inta dambe oo dhan ayuu anfici doonaa qodobkaasi الحرص على تعليمه فرائض الدين إن لجود دالة إن المهلا براء فرائض الدين صلاة دي صومكي زكدي حجكي سيدو كلا لجود دالة إن المهلا براء الحلال والحرام محاو بنان محاسن بنانين أنت النوع عصنا آيات فربنا بكسر وري وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
وكي رسولك لها صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع يقول أبدك تدبجيرا أي صلاة الفرية 10 jir maalinta ay gaaraan haday ka tagaan waa lagu garaacaya maalinta 10 jir ay gaaraan ubadkii wiilal gabdhaha loo kala saaraya ilaa daadii qaangaarkii ku soo dhawaadeen walaalayaal waxa soo hosgalaya in ubadkii lagu barbaariyo shacaa'irul islaam iyo shacaa'irka islaamku leeyahay waxa kale oo soo hosgalaya in lagu barbaariyo aadaabtii iyo akhlaaqiyadkii waxa kale oo soo hosgalaya in lagu barbaariyo ubadkii in la siiyo oo wax la siiyo iyadoo lagu talax tagin in ilmuhu wax bixiyo isagoo lagu talax tagin waxa kale kamida in laga ilaaliyo ilmaha waxa dhibaya ama dhib u geysanaya noloshiisa idan walaalayaal ubadku waxay nagu leeyihiin xuquuq fara badan oo aynu inahaas ku soo afmeerano ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaynu weydiisanaynaa ubadka uu ina siiyay inteena haysata intaan haysanaa aynu rajaynayno in ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu siiyo waa imtixaan laynagu eegayo sida aynu u barbaarino xaqoogana aynu uga soo baxnee in ilaahay subxaanahu wa ta'ala inagu garab galo kuna dadaalno in aynu dad wanaagsan la saaxiibino oo aynu asxaab wanaagsan u doorno si inta aynaan jaaniska u helin ay u buuxiyaan asxaabta wanaagsan khaasatan aynu ku dadaalno waqti xaadirkan oo teknolojiyada muddo farabaas ay ku hayso ubadkiina in waalidku ay aad iyo aad ugu fiirsadaan ubadkooga teknolojiyada isticmaalayaan ubad mobile loo dhiibay oo internetkiina loogu furay kurdana seexan maayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax ilaaliya shaydaan iyo nafna way jiraan meelo fara badan aan munaasab ahayn oo galaya inahaas bin ku soo gabagabeynaa wallahu subxaanahu wa ta'ala a'lam wa ahkamu billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أنا خليفة على الدنا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا خليفة على الدنا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا توافق